malaria waa xanuun infection ah waxaa keena noolaha loo yaqaano parasite nuuciisa plasmodium-ka. bini'aadanka waxay ugu soo gudbi kartaa iyadoo kaneecadu nuuca dhadiga ah lagu magacaabo Anopheles oo horey ugu soo sumowday parasite-kan ay raaciso kanaanada dhiigga bini'aadanka. parasite-ka nuuciisa plasmodium-ka wuxuu leeyahay qaybo gaaraya ilaa 5 nuuc. waxay bini'aadanka u keeni karaan xanuun, laakiin kuwa ugu badan xanuunka ku dhaliya waxaa ka mid ah Plasmodium falciparum iyo Plasmodium vivax. ururka caafimaadka adduunka waxay diiwaangeliyeen 2017 bukaanada ay ku dhacday malaariyada kuwa qaaradda Afrika boqolkiiba 99.7 inay ahayd nuuca Plasmodium falciparum. dalka Soomaaliya waxay WHO ka diiwaangelisay in 2010 bukaanada malaariyada ay ku dhacday gaarayaan ilaa 9500 bukaano, halka 2006 ay bukaanadu ahaayeen ilaa 49,000. sida labada warbixin ay ka muuqato in 2010 duumada aad ugu yaraatay marka la barbardhigo 2006 taa oo lagu sababeeyay in ay dadku ku baraarugeen isticmaalka mara kaneecada iyo sunta kaneecada. xilli horiska duumada waa 10 maalmo ilaa 4 asbuuc kadib markay kaneecadu u gudbiso xanuunka. calaamadaha ugu caansan waxaa ka mid ah qarqariyo iyo qandho, dhidid saa'id ah, madax xanuun, lalabo iyo matag. haddii malaariyada la daweyn waayo waxaa dhici kara maskax barar, bukaankana u keeni kara dhimasho haddii bukaanku uusan helin daryeelka u baahnaa. inay sanbabadu ku aruuraan biyo, beerka iyo keliyaha inay shaqadoodu gabaan mise ay joojiyaan, dhiig la'aan. duumadu ma lahan wax talaal ah, laakiin haddii aad doonayso inaad u safarto meel ay ku badan tahay malaariyada waxaa wanaagsan inaad dhakhtarkaaga la xidhiidho sidaad uga hesho talooyinka iyo dawooyinka ku habboon.